markasta waxaan maqalnaa in biyaha noo leeyihiin faa'iido aad u badan mana la soo koobi karo faa'iidadiisa si aan u helno faa'iidada biyaha waa inaan u cabnaa si ku habboon waana inaan iska ilaalinaa waqtiyada aan ku habbooneen in la cabo biyaha intaan u sii gudagelin muuqaalkayga fadlan janalka subscribe saar gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan mar walbo aan muuqaal soo gelino mahadsanid marka laga soo kaco hurdada oo la cabo hal koob ama 2 koob oo biyo ah waxa uu sare u qaadaa la dagaalanka sunta jirka ku jirta wuxuu kaloo ka qayb qaataa inay murqaha si wanaagsan u shaqeeyaan waxaad ku darsan kartaa si ay biyaha dhadhan kuugu yeeshtaan liin dhanaan ama malab markaasna waxaa laga helaa faa'iidooyin badan oo caafimaad cabista koob biyo ah cuntada ka hor 30 daqiiqo waxa uu caawiyaa in uu dhimo miisaanka sababtoo ah waxaa yaraata baahida qofka taasina waxay ka hortegay in uu qofka cuno raashiin badan isku day inaad ka dheeraatid cabista biyaha inta aad cunaysid raashiinka sababtoo ah waxay keeni kartaa dheefshiid xumo biyaha waxaad ku beddelan kartaa wakhtiga cuntada caanaha haddii aad dareentid oon wakhtiga cuntada waxaad cabi kartaa caanaha sababtoo ah dheefshiidka dhibaato uma geysto oo wuxuu qaboojiyaa jidhka wuxuuna baabi'iyaa oonka qofka marka uu baahan yahay biyaha uu cabo wuxuu ku dareemaa dhereg taasina waxay u diiddaa inuu cuno raashiinka faa'iidada lahayn si aad u dhinto miisaankaaga waxaad samayn kartaa markii ay baahi ku qabato cab xoogaa biyo ah kadibna sug ilaa xoogaa haddii ay kugu siyaado baahida kadib cuntada marka uu qofka daalo haddii uu cabo koob biyo ah wuxuu kordhiyaa kobcinta maskaxda maadaama ay tahay 75% biyo cabista biyaha wuxuu jidhka u qabtaa shaqooyin badan khaasatan marka uu xanuunsan yahay qofka waa inuu cabaa biyo badan taasi waxay sahlaysaa inuu ka yaraado xanuunka ama uu ka caafimaado sidoo kale biyaha waxay sahli karaan in ay soo saaraan khashinka iyo dhagaxaanta ku jira keliyaha waxayna ka hortagaan in ay caloosha istaagto ama saxarada ay adkaato ka digtoonow cabista biyaha xilliga hurdada sababtoo ah waxay kugu keeni kartaa inay hurdadaada xumaato oo aad u soo kacdo wakhti badan kaadi hase ahaatee waxaa muhiim ah inay habeenka cabaan 2 liitar iyo bar oo biyo ah maalintii raggana waa inay cabaan 3 liitar iyo bar maalintii oo biyo ah